السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ayay noo tahay kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada ogaalka daasoon mawduucani gooriyo goob casharkii shanaad waxaa mawduuca kan qoray Dr. Saadiq Qeenow oo qoraalku waxa ay u dhowran tahay qoraaga dhalinyaro meel kasta oo waagu nooga bariyay saaka markii ay qoraxdu soo baxday naguma jiro qof la amakaagay maxay bari uga soo baxday kun ahaantii waa dhacdo lala amakaago laakiin sababta aan isu weydiin weynay waxay tahay iyada oo tan iyo sidaan u garaadsanay ay dhacdadu inoogu muuqatay caynkaas laakiin sidee ayuu xaalku noqon lahaa haddii ay qoraxdu ka soo baxdo galbeedka waxaa hubaal ah qof walba in uu la amakaagi lahaa oo wax su'aala la iska weydiin lahaa xaaladda haddaba sidaas ay mucjisada u tahay haddii ay galbeedka ka soo baxdo si lamid ah ayay mucjiso u tahay in ay maalin walba bari ka soo baxdo waxaa fahamkaas ama kaaga ah hela qofka filosoofka ah oo isagu sidaas aanu ula yaabi lahayn haddii ay qoraxdu galbeedka ka soo baxdo ula yaaban in ay maalin walba bari ka soo baxdo qoraxda oo kaliya maahe wax walba oo u muuqda ayay xigmadyahanadu si gaara u eegaan markaas ayay isweydiiyaan su'aal ayaan dadku isweydiin oo ah maxay tahay waxaan iyo sidee ayay u noqotay caynkan nimankaas oo aad isleedahay waxay ku guuldaraysteen in ay fahmaan nolosha ayaa waxay curiyaan garashada iyo aqoonta iyagu si xooggan u khalaaweeyeen si ay isugu dayaan in ay jawaabo u helaan wax ka mid ah siraha badan ee ku qarsoon dhismaha iyo xeerarka uunkan waxay daba joogaan xaqiiqada iyo ayniyadeeda hadba intii ay gaari karaan si ay u tilmaansadaan aragtiyaalka waaqici fahan xigmadyahanadu arrimaha ay bilowgii isweydiin jireen oo danqinayay fikirkooda waxaa ka mid ahaa su'aalaha ay ka midka yihiin waxyaabaha jira maxay u jiraan ma dhici kartay in ayan jirin ma heli karnaa awood madax bannaan oo aanu wax ku fahamno maxay yihiin sababtana looga baahan yahay si aanu wax u ogaanno uunka iyo hantidiisu ma yihiin wax la uumay mase waa soo jireen ma jiraa abuur ruuxi ah waanan inoo muuqan ma jirtaa nolol ka dambaysa nolosha aanu hadda joogno halkaas ayay ka bilaabatay falanqaynta amuuraha fasiraada loo laayahay iyo howlihii ay horseedeen filosofiintii hore xigmadyahankii Greega ahaa ee la oran jiray Pythagoras 580 ilaa 495 Kristanka hortii wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo ereyga falsafad adeegsada laakiin waxa la sheegaa filosofka la yiraahdo Socrates 469 ilaa 399 isoo hortii inuu isagu ahaa ninkii ereyga falsafada ka soo dejiyay samadii ay ku laalayd oo dhulka dhigay isla markaas aqoonteeda manhajeeyay isagu falsafadii ayuu wuxuu u adeegsaday si aqoon ku dhisan qofka filosofka ah waa qof aanan indho caadi ah ku eegin uunka oo wax walba su'aal ayuu dul saaraa si dabadeed uu u sahansado filosof walba metafizikada u sahantaga su'aalaha uu jawaabta u doonayo waxay ku soo ururayaan laba arrimood oo kala ah waa maxay sababta ay u ahaatay iyo sababtee ayay sidaas u ahaatay ereyga metaphysics waa erey ka yimid af Greek oo wuxuu ka kooban yahay laba erey oo kala ah meta oo gadaal ah iyo physics oo dabiicadda ah wadarta labadan erey macnaha ay yeelanayaan wuxuu noqonayaa dabiicadda gadaalkeeda oo loola jeedo waxyaabaha ku qarsoon waxaa jirta oranaysa haddii dhaqdhaqaaqu uu yahay jimicsiga murqaha falsafadu waxay tahay jimicsiga caqliga taasina waxay ku dhacdaa fikir badan iyo khalaaweyn xilligan casriga falsafada waa anshax aqooneed oo leh faracyo badan mideeda khusaysa mawduuceena gooriyo goob waxay tahay faraceeda metafizikada waa aqoon ku dhisan sahan lagu baadigoobayo asraarta ku daasoon asalka uunka iyo xeerarka uu ku taagan yahay gooriyo goob ayaa waxay ugu weyn yihiin waxyaabahaas ay metafizikadu ka baadigoobayso dabiicadda si baadidaas loo helo waxaa loo maray laba aqoon kuwaas oo saldhig u ah aqoonta falsafada waxay kala yihiin aqoonta jiritaanka anthology iyo aqoonta garashada epistemology labadan aqoon waxay si gaar ah u lafaguraan ka hadalka iyo ururinta falsafada gooriyo goob taasoo soo socotay tan iyo inta taariikhda ilbaxnimada aadmiga la hayo inkasta oo sahanka gooriyo goob uu u qaatay muddo dheer misana wax natiijo ah oo soo gabagabaysa ahaanshahooda weli lama gaarin sababtu waxay tahay sida aanu soo xusnay labaduba ma ahan wax inoo qabsoomi kara sida dhagaxa ama cadka hilibka ah oo kale amaba agab aanu rogrogi karno si aan u daawanno jihooyinka iyo muuqaalada ay leeyihiin
mana aha wax intaanu jijabinno aanu gobolladooda yaryar arki karno dabadeed aanu uga faalloonno. sidaa darteed qof walba oo gudagala inuu fahmo oo wax ka sheego goor iyo goob wuxuu weynayaa wax uu dadka u soo bandhigo. sidaas darteed su'aalaha ay filosofiyiintu ku xayraameen kuwoodii hore iyo kuwoodii dambe mideeda ugu weyn waxay tahay goor iyo goob maxay yihiin iyo sidee u yihiin waxa ay yihiin. saaxiibayaal intaasi waxay nagu eg qaybteennii shanaad ee mawduuceena goor iyo goob. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deena ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.